سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله البر الرحيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. توكل على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم بعد، أحبتي في الله، إلهي سبحانه وتعالى waxaan ka baryaynaa siduu bishan Ramadaan inoo soo gaarsiiyo Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu inoo sakhiro inaan ka faa'iidaysano cibaadaadkeeda iyo daacaadkeeda, uu Ilaahay subxaanahu wa tacaala inaga dhigo kuwa naartiisa uu ka xoreynayo bishan. Allahuma aamiin. أحبتي بالله، waxaan jeclahay maanta inaan ila wadaago aan ka wada faa'iidaysano qiso uu ka sheekeynayo qofka ay ku dhacday, qiso toobad qofka Ilaahay subxaanahu wa tacaala u soo noqday, uu Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu nooga baryo in anaga iyo walaalaha dhegeysanayaba cibro uu Ilaahay nooga cibro aan ku cibro qaadano. sida tan uu qisada ku bilaabaya walaalka qisadiisa soo warinayo mise inoo soo sheegayo. qisadaasi oo inoo soo sheegay wejigiisa waxaa ka muuqatay shalaay iyo ka xumaanta uu sameeyey. wuxuuna leeyahay walaalkaas, salaada maanan tukan jirin, maanan dareensanan inaa dambi iyo qalad aan galayo, damiirkayga muusan dareensanin waxa aan ku socdo, ihtimaam oo dhan maanan siinaynin. maca innii muslim kuntu musliman bilism faqad. wuxuu leeyahay waxaan ahaa qof muslima, laakiin waxaan muslim ka ahaa magac ahaan, magacyaalka muslim uu ahaa keliya. إذا جاء شهر رمضان كنت أصوم وأصلي. wuxuu leeyahay bisha Ramadaan markuu uu yimaado waanan tukanayay salaadana tukanayay waana soomayay. وكأني أعبد رمضان. xaaladaydu waxa ahayd keliya inaan caabudayo bisha Ramadaan. waxaan u dhaqmayay qof keliya caabudayo bisha Ramadaan. ناصيا تلك الفريضة والشعيرة العظيمة. anigoo iska ilaawsan waajibaadkii iyo shacaa'irtii Ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo furuudii Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ugu farad yeelay baaqi sanadka intiisa kaleeto. raqma annii askunu bijiwaari lmasjid. wuxuu leeyahay waxaan degnaa masjidka agtigiisa. aniga xataa waqtigaasi waxaan ahaa qof degan masjidka agtiisa. lam aqul linafsii yowman limaada laa usallii. aniga wuxuu leeyahay anigoo jiiraan la ah masjidka mise gurigeenu ku ag yaalo masjidka, hal maalin nafteeda maanan weydiinin waxaanan u tukanayn, maxay tahay sababtaadan u tukayn maan isweydiin buu leeyahay. markay casiradii la gaaro mise habeenkii la gaaro wuxuu leeyahay waxaan aadi jiray banaanka oo waxaan la soo baashaari jiray asxaabtayda. asxaabtaas waa asxaab xun oo habeenkii oo dhan isla soo jeedin jirnay. walam ufakir bizawaaji mutajaawizi 35 caama. wuxuu leeyahay kumaana fikrin inaan guursado, inaan cumrigii guurka aan dhaafay waqtigiisii aanan jirin 35 sano, waqtiga dhallinyarada ku guursanaysay inaan dhaafay. kuntu araadu imra'atan tadhabu ila almasjid. wuxuu yidhi waxaa mar walba indhaha la raaci jiray aan waardiyeyn jiray inaan mar walba masjidka aadayso waqti salawaat, waqtiga salaadaha ee masaajidka aadi jirtay, khusuusan salaat alcasr. marka wuxuu yidhi inaan baa indhaha la raaci jiray oo waqtigeeda salaada ay guriga kasoo bixi jirtay, khaasatan salaada casr marka ay tahay. وهي متحجبة تمشي على استحياء بطرف الطريق. waxay gabar Ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu deeqay xijaabkii asturaadda oo waxayna wadada ku mari jirtay ayadoo xishoonayso. waxayna isku dhijin jirtay aad ugu dhowaanaysay dhinaca darbiga. كنت أتعرض لها كثيرا وأتحدثها ولا ترد علي. marka wuxuu leeyahay waana la hadli jiray, waxaan isku dayi jiray inaan hor istaago oo hadalaan ku oran jiray, laakiin maysan ii jawaabi jirin. وعندما كثرت مضايقتها لها قالت لي ماذا تريد مني. markaan ay dareentay markay dhisatay waxaan aniga ku sameynaya, markaas waxay igu tiri maxaad iga doonaysaa hoogay, maxaad iga doonaysaa.
markaasaa waxaan ku idhi waxaan doonayaa inaad gurigayga soo gasho, keligay baa degan, cid ila jooga ma jirto. markaas bay si aadab ah iyo ixtiraam ku jira igu jawaabtay. waxay ku tiri, hal codsi baan kaa codsanayaa, codsigaas haddaad ii samayso gurigaaga waan soo gelayaa. markaas baa waxaan ku idhi, utlibii maa tashaa'iin, wax walba aad doonaysa dalbo. markaas bay waxay ku tiri, uriiduka an tusalli 40 yawman fi lmasjid, waxaan doonayaa inaad masjidka 40 maalmood aad ku tukato, jamaacada masaajidka aad ku tukato, khusuusan alsubx waalcasr waalmaqrib waalcishaa. waxay tiri khaasatan salaada subax iyo salaada casr iyo salaada maqrib iyo cishaa. kadibna waxay ugu sii dartay inaad duruusta casirka baxaysana aad ka qayb qaadato, aad fadhiisato, aad dhegaysato. markaas baa waxaan ku jawaabay buu yidhi, waan samaynayaa salaada markaasi sausalli hadi lmudda. markaas waan ku yidhi muddadaasi waan tukanayaa. liawala maratin adkhulu fi lmasjid wausalli alcasr, waxay waa markii ugu horreysay aan nolosheyda aan galo masjidka aan salaada casrka tukado. dabadeed waxaan bilaabay inaan maalmaha tiriyo. kadib markay ka soo wareegatay isbuuc keliya ama isbuucayn keliya markay ka soo wareegatay, 2 isbuuc kadib markay ka soo wareegatay, xaaladeydii baa isbedeshay. lazamtu lmasjid ragbatan minii fi tawba. markaas wuxuu leeyahy waxaan ku nagaaday masjidka toobad aniga aan doonayo, toobad aniga iga soo gooday ah. kadib wuxuu leeyahay khusuusan waqad taclamtu min duruus, marka wuxuu yidhi khaasatan waxaan ka bartay duruustii aan masjid ka qaadanayay, umuura diini, umuurta diinteeda waan ka bartay. uu yidhi waana taariku salaati kaafir, ina qofka markaasna waxaan bartay buu leeyahay inuu qofka salaada ka tago inuu gaal yahay, sida rasuulka sala allahu calayhi wasalam uu nagu yidhi, alcahdu aladii baynana wa baynahum asalaa, cahdiga annaga iyo ayaga inoo dhexeeya waa salaada, waman tarakaha faqad kafar, ruuxii ka tagana uu gaaloobay. waakhadtu xaasiba nafsii, kadib markaas wuxuu leeyahy waxaan bilaaba nafteyda inaan xisaabiyo, wa ana naadimun ilaa yowmi haada. marka wuxuu leeyahy ilaa hadda waqtigan la taagan yahay waan ka shalaaya, maa faatanii min alkhayr alkathiir, khayrka badnaa ay dhaafay. wacindamaa awshakat ilmudda cala alqadaa, wuxuu leeyahy muddadii markii ay dhammaatay, qaabalatnii wa ana fii tariiqi ila almasjid, gabadhii baa waddadii masjidka annagu soo socon isku sii arag. markaas bay waxay ku tiri, hal anta maa zilta calaa ra'yak, weli ma ra'yigaagii baad ku taagan tahay? markaas baa waxaan ku yidhi, qulta lahaa waxaan ku idhi, macaada allahi innii taa'ibu wa innii naadim, ilaahay baan ka magangalay, ilaahay baan u toobad keenay, waana ka shalaayay, ilaahay baan uga shalaayay. wa anti jazaaki illaahu khayraa, adigana ilaahay subxaana watacaala kaa abaalmariyo. faqad gayaraka allahu biya xaali, marka wuxuu ku yidhi ilaahay subxaana watacaala sabab uu iga kaa dhigay inuu isbedelo. waarjuu an tusaamixanii, markaas buu wuxuu ku yidhi wiilkii inantii, walal waxaan kaa codsanaya inaad cafiso, waxaad iga cafisaa wixii xumaantay aan kugula dhaqmay. markaas bay waxay ku tiri, wallaahi innii mundu wacadtak, inantiiba waxay ku tiri, wallaahi magac ilaahay baan ku dhaaranayaa ilaa maalintii aan kuu ballan qaaday, wa ana adcu allaha laka alhidaaya, ilaahay subxaana watacaala baan kaaga baryay inuu ku soo hanuuni fii jamiici salawaati. markaas waxay ku tiri walaashii, walaal waxaan kuu baryay ilaahay maalintan ballanta kuu qaaday ilaa waqtigan la taagnaa, ilaahay salaad walbaan tukanayay inuu ilaahay subxaana watacaala uu ku soo hanuuniye. walxamdu lilaahi aladii hadaak wa akhada biyadika ilaa ariiqi alkhayr, ilaah baa mahad iskale, ilaahay kugu soo hanuuniyey waddadii khayrka ahayd. markaas waxay ku tiri, fataalamaa cirifta ariiq, haddaad waddadii saxda aad garatay, waddadii saxda ahayd ilaahay subxaana watacaala aad garatay, nas'al allaha laka athabaat, ilaahay waxaan kaaga baryaa bay ku tiri walaashii inuu ilaahay subxaana watacaala xaqa kugu sugo. fasbir yaa akhi fa ina addunyaa mataacu man laa mataaca lah, walaal waxay tiri adkayso, u dulqaada adduunyadan mataaceeda waa qof aan mataac lahayn, walaa xada lahu min fi laakhira, qofkii adduunyadan isiiyana aakhira waxba kuma lahan. markaas buu yidhi, uma insarafat wadumuucu
tanhamiru min cuyuuni, kadibna waa iga tagtiina indhahaygii bay ka daadanaysay anigoo madaxa ruxaya bay iga tagtay buu yidhi. innahu liimaan, kaasi wuxuu ahaa iimaankii. innahu طariiqu lkhayr, waddadii khayrka iyo waddadii wanaagga. in hadihi almar'a, inantaasi callamatnii maa lam tacalamni alayaam. wuxuu yidhi inantaasi waxay bartay waxay maalmaha aysan i barin. haadihi qisatii, taasi waxay qisadeyda. lacallahaa cibratun wacida, waxaan rajayn doonaa inay waana qaad ay dad badan u noqon doonto. ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baryaynaa inuu xaqa nagu sugo. allahuma arina alxaqa xaqa warzuqna itibaac, وأرنا الباطل باطلا فارزقنا اجتناب. هذا وبالله التوفيق. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.